بديع الزمان وبدر الدلاب أمير الأنام وماء الغمام دعاء القليل وبرء العليل وهادي السبيل لدار السلام أحبك ربي فصلى عليك الصلاة وأزكى السلام نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل رحمة للأنام ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ولا ليال وحلقة لحات وأها برنامج كيان ودن بشهر رمضان معجزوينك النبي محمد صلى الله عليه وسلم shantii xalaqo la soo dhaafay waxaan ka soo sheekeynay mucjizooyinkii ambiyada ka horeysay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markaan ka soo sheekeynay muqadimadii nabi nuuxkiisa nabi muuse nabi ibraahim nabi muuse nabi ciise maanta waxaan ka sheekeynaynaa xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam walaalayaal inta mucjizooyinkiisa aanan galin waxaan rabnaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inaan wax yar ka hadalno qofka muslimka maanta hadii la weydiiyo nabi maxamed maxaa ka taqaanaa waxa laga yaabaa inuu yiraahdo wax yar ama wax badan uu ka aqoonin bal waxa laga yaabaa nabi maxamed magaciisa sheek hadii la yiraahdo inuu garan waayo waxyaabaha ugu yaabka badnaa maalin oo clip la duubaan daawanay qof la weydiiyay maxamed nabiga in sheeg nabi maxamed oo dhahay aabiis magaciisa reer wuu fi karim markaas uu sallallahu alayhi wasallam ala dhahay waraabi sallallahu alayhi wasallam aan nabi maxamed sheeg nabi maxamed wuxuu maqlay kaliya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam laakiin aabiis ma yaqaano markaas wuxuu ku leeyahay nabigayga waa jeclahay adiga sheekada tareeq magacaagan ila qabiilkii 30 aaba laga yaabo inuu ku wado 30 aaba inuu wada laga yaabo hebel ila qabiilkiisa inuu geeyo wallaan dheeraan ah uu ku dhaha laga yaabo laakiin xabiibkaaga markaa weydiisidna waxa inuu yiraahdo ma jeceshaha waa jeclahu ku leeyahay waa jeceshahay sax waaye laakiin ha laga arka amal ahaan ha lagaaga arko yani jaceelka waa amal waaye hadii afkaaga iyo qalbigaaga isdaaw maraane munaafiqnimo ka abuurnaysa meeshaas nabi maxamed marka magaciisa iska bara bas waa muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab todobadaas kaliya baro waxba kor ha si aadan intan ala laqal xifdi saa magacaaga u xifdiso kale u xifdi muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf ibn qusay ibn kilab todobadaas meel ku xifdiso وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عنقاga waa bartay abtirkiisa Soomahan hebel ataa soo matiraad adigana baro عنقاagana barxa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam abtirkiisa khayr Allah ku siiyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam bani hashim waaye qurayshuna ka dhashtay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u doortay nabinimada intuusan nabi noqonin mucjizooyin yar yar dhaxay oo markuu dhalay dadka mu'arriqiinta qaarkood ay sheegan hooyadiisa inuu aftiin ka soo baxay نبي محمد أبيهيسا ما أركن أبيهيسا حتى سبحان الله أبيهيسا وحالو تلقل إلا قلو داسوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يجري أنا ابن الذبيحين لبضو قفل الربي إلا قلو أي إدالين نبي إسماعيل نبي محمد ونبي كلية كو أبترسد نبي إسماعيل أنبياء ذكالا لن وحيكي إمادين في بني إسرائيل ويعقوبي كود إمادين لكن نبي إسماعيل وحاكيم نبي محمد كليا كيم نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي قالوا أبتر سنة مركو يرى إسماعيل به إبراهيم أي وحور ربي إنه قالوا لكن وفديناه بذبح عظيم ولا بدبادي ملك الله صادري ولا بدبادي تاسمت واي نبي إسماعيل به عبد الله هنا أوويس عبد المطلب وحور ربي إنه قال صابته ربي إنه قال محيهات عبد المطلب وحو أركي ريو
ولا ليه هي احفر زمزم زمزم قط والوسي على الماشي بأسو زمزم قضى قريش أسو استاكت مركا وحي ربان إني كعليان عبد المطلب مركا عيلا قبتي قربوا واي هل عنوغا أجوغي مركاس وحوري كعبضة ربك يدان قدارتي هدو إلهي إسي طبان ويل إسيو حلان قلا إلهي طبان كويل إسيو النذر مركا نذر كنو أوفي وا ما هذا مركا الميسان عبد الله أجعلا قريش لنا وحيدا نينكو أو قروح بدنو أو أخلاق بدنو أو وناكسن وأهاي وإله نينو ربي واي إنو كسو صار دبر كيسة حبيب كينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا مركا وحالته قرطورة لسميه عبد الله يا صباح عبد المطلب ونحي مرلبات عبد الله يا صباح عبد المطلب ونحي مرسد حاد عبد الله يا صباح سدح مر وصباح عبد الله سدح ذي مر أصير كلية نقطة عبد المطلب مركو حقوق قصبية إنه وفيو بلنتيسي بلنتو إليك قال محيه طبعا هدو إليسي هل إنه قلايا طيب سيدي أيوب ربي إنه قالوا لكن قريش تورنيه هو المهم متكلها هذا لكن كان كان ما أنفع عيسو ما قالي كرتيت كان نينك قريش لن يرتو وصر هيا مسمين كرتيت وحير بلنا قاضي وا علمي مركز دنبو حالو تيجي من هناك هنا ذا لو تيجي مركز حيتري هلا بحيو بقول جيل هلا بحيو سيدي مركز لا بحي عبد المطلب عبد الله لا بحي مركز النبي أبيسو عبد الله هنا إله وبدبادي أوجيس إسماعيل نه إله بدبادي ابن ذبيحين وحوله جري تاسوي مرك عليه السلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم مرك أسقو يرول صديق الأمين على هجر الصادق الأمين كله وآمنه وليس بين مشيين ضدنا مخيان عليه وعلى عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم مرك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاكر قوم كيسو كسر دحقري ولسوين هذه أقول أووس عبد المطلب أسوهاي أووس عبد المطلب مركو دنتي آذو وجعلا فدق ولا فريسن جري كعبد ولا فريسن جري مركو أووس دنتو حو دردار ويلا شيسا يا قاضي أبو طالب وحير أنا قام مركا قاضي أبو طالب مركا سوكري نبي وأدير كيس علي بن أبي طالب سوكري مركو سوين هذه كدب خديجو كورسدي شين لا تمركو قاري بزنس يرو بالله ذي خديجو كورسدي waxyaabaha calaamadaha awoogiis Abdul Muttalib loo arkay xataa waxa kamid wadada soo maray maalin oo Nabi Maxamed Israaciil nin yahuudi dhaxdaawgii markaas inta u socotay ninkaas wuxuu yiri yaa dhalay ninkaas meesha joogo markaas uu yiri aniga dhal wuxuu ninkaas nabi uu egahay haw celin dadku inay yahuudi inay dishaa laga yaabay cili Abdul Muttalib uu naxay sidii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam lagu soo celi meesha lagu soo celi Abdul Muttalib markii la arkay maalas oo kaligiis waxa leeyahay niyahu waa wajiga nuur waxa dhabarka ka imaan doon nabiga ka imaanay marka Abdul Muttalib xataa hadalkaas aad u badbadanay marka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam mucjizooyinkiisa way bilaabatayba asigoo dhalaninay bilaabatay asigoo wali nabi noqonay socotay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam Khadiija guursaday radiyallahu anha ummul mu'minin aad u garab istaagtay oo xataa markuu ay dhimatay ka walwali u bixi aamil xuzn u bixi Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam Khadiija dal ilaa caruuru ka sii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam marka 37 sano gaaray markuu gaaray marka wuxuu go'aansaday marka inuu ka tago dadkiisa uu ka tago oo kaliis cuzla uu sameeyo kaligiisa meel uu aado qaar xira ayuu gali jiray marka qaar xira uu iska aadi jiray meeshaas uu iska tagay jiray kaani ilaahu kaliis iska caabudi jiray meesha iska joogay nabi ma ahan wali loo ma waxyoonin laakiin waa loo sii diyaarinay 3 sano meesha inuu tago meeshaas uu aadi jiray iska joogi jiray uu soo noqon jiray habeen soo subax tagay habeenku imaan jiray marmar Khadiija radiyallahu anha u geyn jirtay iyo Cali marmarka qaar kood lagu dhiibay lana Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wafiyo aha adeerkiis maadaama uu soo koriyo Abi Talib uu soo koriyo muxuu sameeyay markuu soo weynaaday asiga oo xoogo Khadiija uu guursaday business uu sameeysanayay wuxuu go'aansaday adeerkiisa Abi Talib maadaama qof iska danyar u ahaa cunugiisa inuu ka soo qaato Cali wuxuu adeer Cali si ana korsanay Cali marka radiyallahu anhu wuxuu ku soo koray guriga xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku soo koray Nabi Maxamed gurigiisa uu soo koray wax shirki ma uusan arkinba nabigeena soo korsaday Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamid marka soo غير xira ku jiro ayaa waxa dhacayso mucjizada ugu horeysay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dhacayso jiriisana ila maalinta qiyaamo Jibriil ayaa ku soo degay Nabi Maxamed Jibriil ayaa ku soo degay Jibriil muxuu ku sameyn doonaa muxuu dhihi doonaa soo nabigu u tasarrufi doonaa
حلقة صوصعته أيان كشيكينينا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إلى سبحانه وتعالى هذه مدحفديو دنبيجيني كين الله دافو بشهر رمضان خير الله نو كلميو حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم تجعل الله نجود رجو آمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وإنه بريتو إيو معجزتي أوه الرئيسي وحبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم لوسو دجي أما أوه لي إلى بر لا جارن وحايدين كجتها خير إيوانك دعاء ربط صدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة سلام بمولى الله نبي كريم ونور هدى.